kulanti habboon idil ahaantiin daawadayaal ku soo dhawaad Halhays Media. maanta waxaanu daaha ka qaadi doonaa taariikhda iyo sooyaalka fanaanka caanka ah ee reer Somaliland ee Maxamed Saciid Biike. waa kuwa Maxamed Saciid Biike xagee ayuu ku dhashay Maxamed Saciid Biike? waa tubaxaaskiisii ugu horeysay ee Maxamed Saciid Biike. xagee ayuu fanka ka bilaabay iyo sooyaalkiisii guud ahaanba fanka? ku soo dhawaada barnaamijka. fanaanka caanka ah ee Maxamed Saciid Biike waxa uu ku dhashay gobolka Sanaag, gaar ahaan magaalada madaxda Ceerigaabo, halkaasi oo uu ku soo barbaaray kana soo dhigtay dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Aadan Secondary School. kadib noloshiisii wuxuu u wareegay gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco, halkaas oo uu noloshiisa heerar adag ku soo maray iyo marxalado kala duwan. shaqooyin hoose oo uu noloshiisa ku maareeyo ayuu ka bilaabay isla gobolkaasi. markuu shaqadii soo dhamaystay ayuu dhalinyarada heeso qaraamiya ku maaweelin jiray isagoo tumaya cuud. kadib intaas waxaa soo bilaabmay hayaankii dheeraa ee fankiisa. waxa uu magaalada Burco isku aruursaday dhalinyaro fanka jeclaa sanadu markuu ahaa 2003, halkaasi oo isna ka mid noqday dhalinyarada. waxaa hormuud u ahaa kooxda dhalinyarada ee Maxamed Bulshaawi oo muusigista ahaa iyo alfanaan Maxamed Gaanda, Maxamed Saciid Biike, Cabdiraxmaan Oday iyo dhalinyaro kale oo aad u badan. intaasi kadib waxaa bilowday jidkii guusha ee Maxamed Saciid Biike, iyagoo markaa mashruucyo kala duwan qaadan jiray iskuulada iyo ururada magaalada. waxaa soo ifbaxayay maalinba maalin ka dambaysa magacooda oo kor u sii kacaya, bulshadana magac iyo maamuusba ku sii yeelanaya. Maxamed Saciid Cabdi Biike wuxuu nolosha kula midoobay fanaanad la oran jiray Aniza oo hadda aan fanka ku jirin, guud ahaanba ka faaruqday fanka, laguna arag shaashadaha TV-yada iyo social media-haba. gabadhaasna ayaa sababtay guushiisii u horeysay Maxamed Saciid Biike, iyagoo heeso lamaane ah soo wada saaray markii u horeysay ee ay kaamirad ka soo muuqdaan. gabadhaasi iyo Maxamed Saciid Biike waxa uu ahaa sanadu markuu ahaa 2006. markaasi kadib waxaa bilaabmay guushii u horeysay ee fankooda ay ka gaadhaan dabayaaqadii sanadkii 2007. wixii ka dambeeyay fanka aad buu liitay oo wax muusig ah tumaba ma jirin guud ahaanba Somaliland iyo geeyiga Soomaalidaba. intaasi kadib waxaa curtay gugi guusha. waxaa si xawl ah fanka wax uga bedelay kooxda xidigaha geeska oo soo abuurmay dabayaaqadii sanadii 2010. kadib wuxuu ka mid noqday Maxamed Saciid Biike isla kooxdaasi, halkaas oo fankiisu xawliya isu soo tarayay. wuxuu ku guuleystay tiraba 4 mar fanaanka sanadka. wuxuu ka mid noqday 3 jeer fanaaninta lagu casumo Somali Week London ee wadanka Ingiriiska. gunti iyo gabagabadii maanta halkaas ayuu marayaa Maxamed Saciid Biike. waa Maxamed Saciid Biike oo kasbaday qulubta iyo shacbiyad badan oo Soomaalida, balse sanadihii u dambeeyay dad badan oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waxa ay dhaliilayeen mowqifkiisa Somaliland, isagoo ah Maxamed Saciid Biike fanaan ku adag qadiyadiisa Somaliland, balse dadku ay jecel yihiin inay dhageystaan heesihiisa. haddaba daawadayaal, waxaanu idiin soo gudbinaynaa taariikho kale oo qarsoon oo Maxamed Saciid Biike ku lahaa sooyaalkiisa taariikhda, balse waxaanu barnaamijkeeni shilka fanka aanu ku kordhinay iyadana barnaamij aanu kaga hadli doono taariikhda fanaaninta Soomaalida ugu caansan iyo kuwa hadda ku soo biiray fankaba. haddaba daawadayaal, si aad la socota barnaamijka shilka fanka iyo barnaamijkan taariikhda fanaaninta Soomaalida, waxaad kala socon doontaan Halhays Media. haddaba daawadayaal, si aad ula socotaan, fadlan channelkan Halhays Media subscribe saar haddaad ku cusub tahay, asxaabtaana la wadaag. fadlan commentiga noogu reeb wixii ra'yi ah ee aad taariikh ka hayso guud ahaanba fanaaninta. hadba fanaanka aad jeceshahay iyo ka aad danaynayso inaan ka soo hadallo taariikhdiisa, waxaad noogu reebtaa commentiga, annagoo ka soo hadli doona markaanu jaanis u hadlo haddii la yiraahdo. waa anigoo ah Maxamed Cali Daaha. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.